wali waxa socda dagaalka iyo waliba gurufka lagu qaaday qoomiyadda Tigreega waqooyiga dalka Itoobiya. dagaalka ayaa galaya isbuucii saddexaad oo xiriira iyadoo isbuucii saddexaad dagaalku madaxa la galay ay noqonayso saddex isbuuc oo isku xiga oo dagaalku xiriir yahay 4 bishan ee ku jirno November 2020 ayuu dagaalku ka bilowday deegaanada Tigreega iyagoo ciidamada militariga dawladda federaalka iyo waliba sidoo kale ismaalka Tigreega ee TPLF halkaas iskaga hor yimaadeen. wuxuu dagaalku yahay mid aan istaagin iyadoo dagaalku muddadaas oo ka socday deegaanadaasi. inta badan deegaanada lagu dagaalamaya ayaa deegaanada ay wadaagaan xuduudda Amxaarada iyo Tigreega inta ugu badan la isku haystay magaalooyinka deegaan Amxaaradu ay la wadaagaan xuduudka Tigreega. dadka falanqeeya arrimaha militariga iyo dagaalka ayaa sheegay in dagaalku si toos ah u bilowday maalinkii shalay iyadoo dawladda federaalka Itoobiya ay diyaaradaha lidka diyaaradaha ay ku garaacayso xarunta ismaalka Tigreega maqalla. xarumaha muhiimka iyo saldhigyada ayaa la beegsanayaa. ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa dhowr jiho oo dhanka galbeed kaga soo wajahan xarunta Tigreega ee maqalla. Tigreega ayaa la sheegayaa inay istifaacayaan isla markaana ay bisbidayaan awood iyagoo wali haysta hub gaaraya masaafooyin fog. wararku waxay sheegayaan laga qabsaday magaalooyin muhiim ah isla markaana kiiloomitir yar oo kooban loola jiro xarunta magaalada maqalla. waxaa la sheegayaa furimo muhiim ah oo dhufaysyo ah oo Tigreegu ay isku difaacayeen in lagala soo kacay isla markaana laga saaray. dhanka galbeed ayaa ilaa 9 jiho waxaa kaga soo beegan ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya. muhiimadda ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya ay u saarayaan jihada dhanka galbeed xooga in ayna Tigreegu marnaba ka baxsan isla markaana u gudbeen dhanka iyo xuduudda Suudaan iyo si ayna taageero uga helin dawladda ay Masar ka mid tahay oo hadda madax ka tirsan ay ku sugan yihiin Suudaan isla markaana ay dawladda federaalku ay ka cabsi qabto in ay halkaas inay saalad military ka helaan. Gobalka Tigreega ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya ayaa dawladda federaalku qorshayaasha u dejisay ayaa waxa ka mid ah in gobolkaasi la godoomiyo isla markaana laga xiro wax ka soo dabada ka soo galaya. Tigreegu ma haystaan gargaar uga imanaya xuduudaha iyo waliba sidoo kale mid badeed iyo mid xagga cirka ah. xagga Anfarta Amxaarada iyo waliba sidoo kale galbeedka dhanka xuduudaha galbeedka ee dhaca dalka Suudaan ay wadaagaan ayaa ciidamadu ka soo hareereeyeen iyadoo godoomintu ay ka mid tahay jabka loo geysanayo Tigreega. Tigreega ayaan haysan cunto ku filan, shidaal ku filan iyo rasaas iyo waliba hub ku filan oo ay ku sii dagaalamaan ayna dagaalka ku sii wadaan isbuucyada fooda inagu soo haya. dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa wacad ku martay inay soo afjari doonto kuwa ay ku sheegtay qaswadayaasha nabadiidka ee kala jaraya Itoobiya iyo qaranka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa hadallada adayga u soo qaadanaya waxaa ka mid ahaa waxay wax ku barteen cashuurtii dalka iyo qaranka. waxay khayaameeyeen askartii ugu jirtay godadka dawacada ee difaacisay isla markaana amnigooda sugaysay. mana ilaawano mar kastaba waxaa ka dhacay 4 bisha November saldhigga ugu weynaa dhanka waqooyi. Abiy Ahmed ayaa muddo 3 casho u qabtay oo maalinkii shalay ku eekayd iyadoona 3 casho uu fidiyay cafiska isla markaana ahayd inay isku soo dhiibaan ciidanka dawladda federaalka ay ka dhamaatay Tigreega. Tigreega ayaa wali sii dagaalamay. Tigreega ayaa waxay aaminsan yihiin in dawladda federaalku waxay wax nafa isla markaana ay noqonayaan wax habsi la dhigo iyo wax la geeyo la horgeeyo cadaaladda toogashana lagu fuliyo. madaxweynaha gobolka ismaalka Tigreega ayaa warqad cala u badan cabasho iyo calaacal u diray dawladaha caalamka iyo waliba sidoo kale qaramada midoobeed iyo hay'adaha xuquuqul insaanka. wali waxaa socda dagaalka xoogan iyadoona dagaalka bilowgiisii hore iyo 2 isbuuc hore ciidamada militariga Itoobiya soo gaaray khasaare badan. waxaa la arkayay muuqaal la soo galiyay baraha bulshada boqolaal ciidan ah oo saraakiil khudbadaynayso taasoo la sheegay inay yihiin saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada militariga Itoobiya oo niyadda u dhisaya ciidamadooda ku jabay dagaalka. jab aan la qaran karin ayaa ciidamada dawladda federaalka Itoobiya waxay kala kulmeen maha dagaalka ee ay ku sugnaayeen ciidamada Tigreegu. kadib Tigreegu markay ku liishaameen isla markaana ay ku ganeen gantaalada ritada dheer ee wax ka dila 300 kiiloomitir ilaa 500 kiiloomitir iyo waliba sidoo kale babooyinka dhulka lagu aaso lidka hubka ee diyaaradaha kale taangiyada dagaalada kuwaas oo masaafo fog kaga soo dhacayay ciidamada dawladda federaalka. Tigreega oo fahansan siyaasadda iyo dhulka ay degan yihiin iyo muhiimadda goobaha si u kala muhiimsan yihiin ayaa ciidamada cusub ee dawladda federaalka ee deegaanadaasi ku cusub ee laga qaaday gudaha Soomaaliya
dowlad deegaanka Soomaalida, Amxaarada, Oromada, Canfarta iyo waliba sidoo kale ismaamulada kala duwan ayaa jab halkaasi kala kulmay. dagaalka ayaa mararka qaybo kamid ah waxa khibradu kamid tahay inaad deegaanka aqoon u leedahay aadna taqaanid meesha dhufays noqon karta iyo meesha noqon karin. khibradda Tigreega oo ka faa'iideysanaya khibradda deegaanka ay degaan iyo buuraleyda ayaa ciidamada isbuucyadii horeba jab xoog la gaarsiiyay. balse saraakiisha sarsare khabiirada sarsare ee saraakiisha u soo joogay dagaaladii la galay Soomaaliya iyo sidoo kale waliba elatariya ayaa waqtigan waxay dejiyeen shax cusub lagu dacwareenayo ciidamada Tigreega si looga gacan sareeyo. balse wararka maanta la helaya ayaa sheegaya in Tigreeg goobo muhiim ah laga qabsaday. shidaalka ayaa gabaabsi ku ah, cuntada la cuno ayaa gabaabsi ku ah, sidoo kale waxaa khasaare weyn la soo gaarsiiyay saldhigyo muhiim oo isku haleynayeen oo yaalay kaydka hubka iyo kaydka cuntada iyo shidaalka. dadka falanqeeya milatariga iyo waliba khabiirada dhanka milatariga ayaa sheegaya in Tigreegu waxa kaliya ay ku sii dagaalamay caqiido iyo waliba fakarka ay aaminsan yihiin oo ah in laga hortago isla markaana marnaba ay aqbalin inay hoos tagaan maamulka iyo dawladda Abiy Ahmed uu hogaaminayo. dagaalka gobolka Tigreega ka socda ayaa yeelanaya wajiyo kala duwan iyadoo dawlado shisheeye oo waqtigan ay kamid yihiin kuwa Carbeed ay ku yeelanayaan galaangal siyaasadeed. dawladda Imaaraadka Carabta ayaa durbowtaba la soo dhajiyay isla markaana shaashadaha adduunka haysato oo la sheegay in dagaalka qayb ka tahay kadib markii la tariyay ku caawisay diyaaradaha loo yaqaan drone-iska bilaaduuliyaha oo habeen ka hor duqeeyay goobo muhiim ah oo saldhigyo ah oo Tigreegu leeyihiin kadib taasoo lagaga jawaabayay gantaaladii ay ku lishaameen isla markaana ay ku ganeen dalka la tariya gaar ahaan caasimadda la tariyay Asmara. dawladaha ay kamid tahay Masar ayaa la sheegay qudhooda inay waqtigan wadaan inkastoo dadka falanqeeya arrimaha milatariga arrimaha dagaalada ayaa sheegay in ay dawlado kale oo aan la ogeyn oo waqtigan jira hoose ula shaqeynaya labada dhinacba. taliyaha ugu sareeya ciidamada milatariga dalkaasi Masar ayaa ku sugan dalka Suudaan. ciidamo ka socda dalka Masar iyo kuwa Suudaan ayaa sameynaya dowlatus military xilli dagaal kulul ka socda dalka jaarka la Suudaan iyo Itoopiya. waxa dad badan isweydiinayaan iyo kuwaas waliba siyaasadda falanqeeya sababta ku soo beegtay maalmo kadib markii dagaalku Itoopiya ka qarxay. dawladda Masar ayaa waqtigan u aragtay chance muhiim ah inay uga faa'iideysato iyadoo hubaynaysa jamhadaha xilli dagaal u dhaxeeya qoomiyadda degta wabiga Niilka ee biyo xidheenka iyo ciidamada milatariga maalin ka hor qudhooda uu dagaal dhex maray. inkastoo dagaalkaasi meel uu ku dameeyay in xukuumaddu faahfaahin ka bixin. baraha bulshada ayaa gabaabsiya, isgaarsiinta ayaa gabaabsiya gobolada dagaalku ka socday ee Tigreega iyadoo hay'adaha caalamiga codsanayaan in dib loo fasaxo isgaarsiinta iyo khadka internetka si wax walba loo ogaado. shalay galinkii dambe ayaa dawladda federaalka Itoobiya waxa ay soo bandhigtay maxaabiis ay sheegeen inay ka qabteen Tigreega. dagaalka dhanka saxaafadda iyo warbaahinta ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay labada dhinac balse Tigreegu ma haystaan khad iyo internet awood leh oo ay ku gudbiyaan xogahooda iyo waliba kuwa buunbuuninta ee xagga dagaalka saxaafadda. xukuumadda oo haysata saxaafad iyo waliba sidoo kale taageerayaal markaana la dhacsan hoggaanka dalka Itoobiya oo suxufiyiin ayaa deegaanadaasi la geeyay waxaana si talantaaliya u soo tabinayaan wararka ku saabsan dagaalka jabka Tigreega maxaabiista laga qabsaday iyo waliba kuwa u cararaya Suudaan iyo kuwa buuraleyda naf bidaya ee Tigreega. madaxweynaha ismaalka Tigreega ayaa waxa uu qaatay isla markaana usurka ku dubtay macaawistiisa taasoo dhaqana markay Tigreegu dagaal u diyaar garoobaan ay inta badan shay ah lagu yaqaano. ciidamada Tigreega ee ka dagaalamaya furimaha hore isla markaana kula jira dawladda dagaalka ayaa lagu arkaya qaybo badan oo kamid ah sawirro laga soo qaaday macaawis iyagoo ugu duuban tahay madaxa waana diyaar garowga ugu dambeeyay ayaa dad badan ku falanqeeyeen oo Tigreegu inta badan caanka ku yihiin. lama oga dagaalkan mabaadka saddexaad madaxa la galay meesha uu ku damayn doono balse waxaad moodaa inay soo shacbaxayaan quwado iyagu waqtigan ka qayb qaadanaya dagaalka oo uga qayb qaadanaya si taban iyo si togan